Fatima Mohammed Noor, the winner of this batch. Hambalyo, Winner of Fatima. the fourth batch. munaasabaddan oo hannaankeyga dhicitaan ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa u reebaneyd xafladda qalinjabinta dafcadii afraad ee ka baxda jaamacadda admas faraceeda magaalada boorama ayaa xilli hore oo saakaa lagu qabtay mid ka mid a howlasha ka binaysan hoteelka sow ee magaalada boorama ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda ayaa wadeertoodu dhannayd 66 arday kuwaasoo dhammaystay takhasusaadka kala duwan ee jaamacaddu bixiso munaasabadda qalinjabinta ayaa waxaa kala soo qayb galay agaasimihii guud ee hore agaasimihii guud ee hore ee howlaha guud maamulka gobolka ka degmada madaxda jaamacadda admas madax dhaqameed mas-uuliyiin iyo waalidiinta dhalay ardayda maanta qalinjabinaysay ugu horeyn waxaa madasha furay gudoomiyaha jaamacadda admas ee magaalada boorama xafladan aadka u quruxda badan maanta halkan la soo agaasimay ee ku sagootiyeynay ardayda qalinjibiyaasha sanadkan ka qalinjibinaysa jaamacadda admas difcaddii afraad waxaan kaloon hambalyo siinayaa ardayda qalinjabinaysa iyo waalidiintooda oo runtii juhdi badan iyo dadaal badan kadib maanta halka soo gaadhay guushii ay u halgamayeen jaamacadda admas jaamacaddu waxay ku suntan tahay wanaag excellence sababtoo ah waxay bixinaysaa tayo waxbarasho oo heerku aad u sarreeyo oo u siinayso ardayda waxbaranaya. Our distinguished guests of this graduation ceremony, honorable top management members, administrative and academic staffs of both Hargeisa and Borama campuses, honorable parents, family members and friends of our beloved prospective graduates, dear our beloved and honored prospective graduates of the year 2021, ladies and gentlemen. Ilahi habarakiyo damantin, congratulations, 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 hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa mahadsan. intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiin madax dhaqameed waxayna duco iyo dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda admas waxaan marka ugu horeeya ardayda leeyahay hambalyo 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 waxaan halkan idinku bishaareynaya saddexdii arday u kala sareeyay saddexda department in jaamacaddu ay ugu deeqday masters scholarship program jaamacadaha Ethiopia ah oo aanu dhawaan ka helnay waa jaamacadda Haramaya Wadirdaba iyo Jigjiga oo ay kala dooran doonaan different programs kala duwan oo master ah taasaan rabay inaan idinku hambalyeeyo professorada jaamacadda Almas University anigu jaamacadaha kale waan ka jecelahay waxaan uga jecelahayna waxa weeyaan laba dawladood Somaliland iyo Ethiopia ayaa ku dhan sidaa darteed ayay wax u dheer yihiin jaamacadaha kale jaamacadda Admas ardayda ka qalin jabisay waxaan leeyahay hambalyo 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 baan leeyahay maanta waa maalintiinii waa ciidiinii waxa kaloo ciidda idinla wadaagaya waalidiintii idinku soo tabcay ee waqtiga dheer idin soo garab taagnaa ardayda qalin jabinaysa waan u ducaynaynaa waxaanan leenahay caqliga iyo cilmigaba Allah inii barakeeyo maayirka magaalada boorama gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal agaasimihii guud ee hore tacliinta sare ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa waxay ardayda ugu hambaliyeeyeen ardaydaasi quruxda badan leh ee maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Admas inay yihiin ardayda maanta ay tahay maalintoodii waanu hambaliyeynaynaa waxaan leenahay ilaahay cilmiga aad barateen ha idinku anfaco idinka iyo waalidkiinii noqdana kuwii dalka iyo dadka iyo ummadaba uga faa'iideeyay cilmigaasi haddii ilaahay dhaado hambalyo mabruuk congratulations Filistianso inkuanda salaju baga gamadha iyo in kala badan hambalyahan idilaahay
ardayda maanta halkan ka baxaysa waxaan leeyahay hambaliyo idinka iyo waalidiintiinba cilmiga aad barateenna ilaahay idinku anfaco. ugu dambeynna madaxda jaamacadda Admas ayaa mid u guddoonsiiyay ardayda shahaadooyinkii ay mutaysteen iyagoona ay goobta ay ku guddoonsiyeen ardayda ugu sarreysay abaalmarino isugu jira bilad iyo koob. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, telefishinka CBA.